بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ولليال وحلقدي تضباد اتحانهني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حلقة عوان كيدوح نقونيا فساد الأخلاق حين يضيع الحياة. فساد كأخلاق ذي يدقنك waxay imanaysaa marka xishoodku uu dayacmo xishoodku meesha ka baxo. أحبتي في الله، الحياء وحياة القلب. xishoodku waa nolosha qalbiga weeye. qalbigaadu inuu nool yahay oo samaanta iyo xumaanta uu kala saarayo, miisaan sax ahna nolosha uu saarayo, waxaa keenaya xishoodka ayaa keenaya. marka xishoodku qofka uu ka dhinto, xubnahana markaasi ayay taraaraxaan. allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay walaa taqrabu lfawaaxisha. faaxishada ha u dhowaaninaya xumaanta. mar kale wuxuu leeyahay qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim. mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow, indhahooda ha laabeen, ha xishoodeen. mar kale allah wuxuu leeyahay ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula. aragga iyo maqalka iyo maanka waxaasoo dhan waa mas-uuliyad weeye. suubanuhuna wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta. haddaadan xishoonaynin waxaad doonta samee. halkaa waxaa ku jira xishoodka waa waxa wax walba kaa qabanaya. mar haddii xishoodka meesha uu ka baxo, daysanaad tahay. waxaad tahay qof uu damiir uusan xidhaynin. waxaad tahay qof aysan waxba ka xidhnayn baad noqonaysaa. nabiga wuxuu kaloo leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh alxayaau shucbatun min aliimaan. xishoodku waa gabal iyo qeyb ka mid ah iimaanka. waxaa kale oo nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ina likulli diinin khuluqa wa khuluqu lislaami alxayaa. bal hadalkaa nabiga cajabtiisa u fiirso. diin walba dhaqan bay leedahay, dignity bay leedahay. diin walba mabda iyo akhlaaq bay leedahay. akhlaaqda islaamkuna waa xishoodka. ibnuqayim calayhi raxmatullah waxa uu yidhi alxayaau aslu kulli khayr. xishoodku waa khayr oo dhan. alxayaau kulluhu khayr. xishoodku kulligii waa wada khayr. cumar ibnu khadaabna wuxuu leeyahay man qalla xayaa'uhu qalla waracuh. xishoodkiisu qofkuu yaraado, waxaa weeye waracnimadiisa iyo xalaal miirashanimadiisa ayaa yaraata. alxayaau marka walaalayaal waa dharka qalbiga weeye, waa labiska qalbiga. xishoodku hadduu meesha ka baxana waa bidaayat lfujuur. waa xadgudubka iyo tuqyaanka bilowgiisii weeye. diinteennan waa diin xishood weeye. sidaa daraaddeed waxaynu walaalayaal isu dardaarmaynaa, nusuustan aynoo dardaarmaysaa waa in aynu xishoonnaa, oo aynu ilaahay ka xishoonnaa, oo ayna xuduudda ilaahay u dhowaanin, oo ilaahay amarkiisa aynu ka xishoonnaa, oo araggeenna aynu kontaroollo, carabkeenna aynu kontaroollo, ficilka aan samaynayno aynu kontaroollo, dhaqankeennu uu noqdo dhaqan aan ku salaysnayn isweynayn iyo ismaqashiis iyo ismuujin iyo hal ay arka uusan noqonin. xishoodku wuxuu ka bilowdaa inaad tasarufaadkaada marka hore u fiirsato, ilaahayna qalbigaada uu ku weynaado
ayuu xishoodku ka bilowdaa. bishii ramadaan baynu ku jirnaa. ramadaanku waa dugsi akhlaaqda lagu barto weeye. in badan baynu soo sheegnay oo soonku alla ka cabsi hadduusan kuu siyaadinaynin soon ma noqonayo. alla ka cabsiguna waxaa weeye waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhowrsataa ood xumaantana ka fogaato, samaantana aad ku dadaasho. amarka ilaahayna aad qaadato, wuxuu kaa reebayna aad iska dayso weeye alla ka cabsigu. taasi waxay u baahan tahay xishood iyo inaad weynayso xuduudda ilaahay, inaad weynayso shacaa'irta islaamka. ilaahay wuxuu weyneeyey inaad weynayso. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wixii uu ha laga fogaada yidhina waa wax weyne inaad ka fogaato. waxaasi marka ay xishoodku qalbigaada uu ku weyn yahay ayay kula weynaanayaan. daalika waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub. zamankan aynu joogno waxaa weeye zaman shaashaadka iyo moobaylada xumaan oo dhan, muusiqa iyo dumar qaawan iyo rag wada qaaqaawan iyo dhibaato oo dhan iyo fuxshi iyo fujuur oo dhan uu ka socdo. haddaadan araggaada aadan kontaroolin oo aadan xishoonin, qalbigaadu ma nuurayo, ramadaankaaduna ma wanaagsanaanayo. soonkuna waxaa weeye waa inaad ka afhaysataa wixii ilaahay uu ku yidhi ka afhayso. min tuluuci alfajri saadiq ilaa guruubi ashamsi. wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqan ahaan uu ka tag ku yidhin inaad ka tagto, wixii uu ka xishoo ku yidhin aad ka xishootaa loo baahan yahay. akhlaaqdaadaa markaa dhismaysa. u fiirso, ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa markuu ammaanayay wuxuu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim. dabeeco wanaagsan dusheedaad ku sugan tahay nebi maxamedow. dabeecada wanaagsanna waxaa weeye waa qalbigaada oo xishooda, waa qalbigaada oo ka sariigta. meeshaa meel nin weyn taga ma aha, meeshaa meel ay marwo muslimada istaagta ma aha. ficilkaasi ficil qof weyn ma aha, ficilkaasi ficil qof muslima uu sameeyo ma aha. weedhaasi weedhay qof muslima uu ku hadlo ma aha. xaajadaasi xaajo gobeed ma aha, qofka inuu dhaha loo baahan yahay. meesha wax laga miisaamayana waa qalbiga weeye. qalbigaasi marka inuu xishoodaa loo baahan yahay. carabku inuu xishoodaa loo baahan yahay. xubnuhu markaasay xishoonayaan. xishoodkuna waa dareen qalbiga ku jira weeye oo kugu weynaada, dabadeedna aad dhaqan geliso weeye. bishii ramadaan baynu ku jirnaa. xishoodka aynu ku dadaalno, ilaahay aynu ka xishoonno. nabigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa iyo dhaqankiisa aynu ku dadaalna inshaa allahu. waxa aakhariya adduunba inoo habboon aynu dhaqan ka dhiganna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. jazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.